الرحيم maanta December taariikh 2019 waxaan ku suganahay xafiiska xisbiga gobolka Awdal ee Wadani waxaan maanta ka hadlayaa war dhiilale waxaan nasiib darraa oo maanta xukuumadda jirta caadaysatay inay xarig xaq darra ah oo aan geed loogu soo gaban xidho suldaanka guud ee xeebaha Suldaan Abshir waanu cambaaraynaa xariga waxaan u aragnaa hordhac aga juglayn soo socota oo lagu baqa gelinayo inta hadhaaga ay runta ka hadasha waxaan aad iyo aad uga xunahay suldaanku muu oran wax dambiya wuxuu yiri wasiirkan noo yeeray buu macdanta wuxuu nooga warramay buu mashruuca wado wuxuu noo sheegay buu suldaanku inuu xoogaa sunihi dhibihi ay jirto suntana ka hortagayga ay hayno suldaanku halka uu ka biyadiiday halka haddii uu qofka bini'aadankii xari ku mutaysanayo deegaankayga meesha sun lama geyn karo oo xari ku mutaysanayo iyadoo aynu joogno 2020kii gobolka Awdal waa nasiib darro waxa horeyaduna nasiib darro u ahayd oo dadkan dhibaatooyinka haystay ka soo ahayd horey baa u xidhnay dekadii Lughaya oo loo rafacay waxa horey u xidhnaa madax taabashadii loo yacada socotay waxa horey u xidhnaa garoonkan maalin kasto la yimaado wafti yimaado dhagaxa la dhigay airportka baa xidhnaa dhammaan dhibaatooyinka gobolka Awdal ka taagan ee dhiilada leh ee miisaaniyadu ka mid tahay xabada la xabadaynaya maanta dadka qaarna dhaawac yihiin dhaqaatiirta jiifaan ee dhalinyaradii maanta xabad nool lagu dhifanayo waa dhiilo war weyn oo dhiilo weeyaan waxaan aad iyo aad uga xunahay waxay Soomaalidu ku maamaadaa qowlay qoor qabasho kuma biyacabto waxaanu leenahay suldaanka xurriyadiisa loo soo celiyo farta laga saaro apology laga bixiyo xariga suldaanka apology laga bixiyano leenahay waa nasiib darro hadduu yiri deegaankii aan ka soo jeeday markii lagala tashaday hawsha uma qalmaan dadkaygu sun ma geeyaan wax lagu xidhaan ma garan karayo maxay isku qarinayaan kuwa reer Awdala ee mashruucan hor socda ee kaga naban dhinacu maxay isku qarinayaan maxaa wasaaradda macdantu ay u faahfaahin laadaay caqabadaha iyo dhibaha iyo mushkiladaha iyo faa'iidooyinka ay u leedahay gobolka Awdal ee bulshadu ugu muransan tahay wasaaraddu dhuumashada ugu jirtaa maxay dhuumashada ugu jiraan kuwa wasaaradda dabada ka soo riixaya ay laayibkaas qarinayaguna ee aan bulshada soo hordhigayn warcad oo qanciya waa nasiib darrooyin meesha ku aadan may gaadhin Somaliland xilligii resource-ka la qaybsanayay waxaan u sheegayaa xukuumadda maanta joogta haddii resource-ka la isku talaabayo madaxweyne warshada berbera ayuu daabshilisan lahaa warshada berbera oo asadkii dawladda oo dawladii siyaad barre ka hadhay ayuu dhisan lahaa oo muranaanu ka taagnaadeen waxa naga la noogu keenay ma garan karayna markaa shirkadaha aan garanay haddii aana sharcigu qeexayn shirkadda faa'iidada ugu jirta gobolka Awdal danta ugu jirta iyo khasaaraha ugu jira aanan kala ogeyn ma ogolin waxaanu la qabnaa Suldaan Abshir baanu la qabnaa